barnaamijkeennii xog waran oo aanu ku waraysanayno gudoomiyaha golaha khusuusiga ee beesha dhulbaxanteed Cabdirasaaq Xasan Ismaaciil. Cabdirasaaq ugu horreyn waxaad noo warantaa shirkii maanta halkan ka dhacay ee ismada iyo waxgaradka beesha dhulbaxanteed ku sugan magaalada Burwadal ay yeesheen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Shirka ka dhacay maanta Burwadal wuxuu ku saabsanaa sida aad warbaahinada hore ka dhageysateen iyo TV-yada waxaa jiray in ismada qayb kamid ah lagu khalday meesha la yiraahdo Garowe lagana saxeexay wax aan la isla ogeyn oo aan ahayn wixii ay dhisteen ee ismadu isla gaareen laguna dhisay golaha khusuusiga. Masalan golaha khusuusiga markii la dhisay waxa baaqay ismada ku caddaa in ay midba mid ka dambeysay maamulka Puntland ay uga dibin daabiye badnayd ugana dayac badnayd gobolada SSC sida daraadeed wixii afka laga wada yiri iyo wixii qoraalka ku soo baxay ayaa waxay noqdeen waxaan iswaafaqayn waxaana qoraalka ku soo baxay inay ismadu saxeexeen in ay u talada Sool iyo Sanaag iyo Cayn maamulka Puntland taa oo aad looga xumaaday sida daraadeed ismadii maanta markii ay yimaadeen ay noqdeen taladu inay tahay tii hore loogana fadhiyo khusuusiga la dhistay hawshii loo idmaday ismaduna ay uga dambeynayaan. waan gartay dabcan waxaan ugu maqaalaa qaar kamid ah ismadu inay dhaarteen baynaysan wax dhaqaalaha ka helin Puntland sidoo kalena ay go'aankii idinkiina u wareejiyeen arrinta ayada ruuxantii dee waa laga yaabaa markii wax khaldan la arko in dadku turjumaad khalad ka qaato oo la yiraahdo ismada lacag baa la siiyey laakiin anagu taama oranayno oo ismada iyadu maaha runtii kuwa la oran karo waxay ku shaqeeyaan lacag laakiin waxaan u arkaynay shirqool wixii afka lagaga heshiiyey iyo waxa qoraalka ku soo baxay ay kala duwan yihiin wayan sheegeen ismadu in aanay qaadan wax dhaqaalaha balse ay ahayd shirqool loogu talagalay oo iyaga sumcadda lagaga dilayo laguna moralkan lagaga dilayo dadka ay ismada u yihiin siiba jaariyaha dibadda. idinka ka khusuusi ahaan iminka waa la doortay xubnihii kale khusuusiga sida gudoomiyihii oo gudoonkii kaliya ayaa hadda dhisan sida aad la socotid markii la dhisay golaha khusuusiga dadka la magacaabay waxay isugu jireen dad dalka jooga iyo dad dibadda jooga dadkii weli qaar baa maqan oo dibadda ku maqan qaar dalka jooga oo weli aan dhaaran oo aan u deynay xubnaha ilaa ay xilliga la isu soo dhamaanayo iyo qofka ku haboon la helayo inay isu yimaadaan wax kale hortaagan khilaaf ma jiro. Cabdirasaaq xaaladda lagu jiro waa xilli kala guura iminkana uma baahna waqti dambe in la wax la sii dooyo ama wax la sii jiido marka xubnahan aan weli la dhaarin gudooda iyo hawlihii niini yaalay golaha dhexdiisa miyaan la oran karin waa la raagtina dhamaystirtaan ruuxantii sida aan runaan wax u qabsano iyo barnaamijka looga fadhiyo ma aha kuwa ay curiyaamin karayaan xubnaha ka maqan oo xataa haddii aan waxba la dooran oo xataa gudoomiyaha la dooran waxaan mar walba anagu diyaar u nahay in hawshiina loo diray aanu ku dhaqaaqno aanu qabsano waayo ma nihin dad mas'uuliyad iyo jagadoona waxaanu nahay dad doonaya xorrimadoodii dalkoodii sharaftoodii dad doonaya ayaanu nahay marka xubin kasta oo naga maqan oo ama dibadda nagaga daahda ama aan weli soo gaarin wax culaysa naguma hayso inaanu qabsano hawshayadii wayna noo socdaan hawaayagu meel fiican way marayaan waana ku dhaqaaqnaa xilliga hadda waxyaalaha mar haddii taladii beesha inta badan lagu wareejiyeenka abaabul badanna wayna sugayo dal maqan inaad xoreysaan iyo midnimo inaad raadisaan la sugayo xageebad beesha wax ka bilowdaan ugu horreyn ama koob aan idhaahdo waa morally laba waa ciidan saddexna waa dhaqaale runtii saddexdiiba waanu haynaa wax naga dhimanayna ma jiraan dhibaa curfi weyna naguma hayso inaanu dalkayaga xoreysano dhib weyn naguma hayso haddeer dhaqaalaha iyo kolley xoreynta hawl badan oo dhaqaale u baahan marka ma ku niyadsan tahay Cabdirasaaq ahaan inaad heshaan dhaqaalihii dalka inaad xoreysaan waanu ku niyadsanahay ruuxantii markii aan sababeeyo waxa weeye dalka aan ku noolahay waa dalka waa deegaan ahaan waa deegaanka ugu xoolo badan marka la yiraahdo Soomaaliya baan idhaahdo waa qodob waan ku rajayn hadda aan ku jiro waan ku xisaabtamaynaa tasaddexaad waxaan waliba si gaar ah ugu xisaabtamaynaa ruuxantii oo wax la xusi karo waxaan leenahay hablaha ugu qiiro badan ama dhaqaale fara badan awalba u horay xoreynta dalkooda haddana diyaar waa oo ah xubinta ugu muhiimsan oo haddeerna diyaar la waxa aanu gacanta ku hayno iyagu haddeerba u badan
ballanqaadadana u badan marka intaa markaanu haysano wax weyn oo aanu ka walwalaanama horyaalin cabdirasaaq waxaad ansixiseen hogaankii goboladan oo iminka dibadda ku maqan niyad samintee leed ku qabtaan dhawaan uu hogaanka dalka soo galo run ahaantii hogaankii waa looga fadhiyaa inuu dalka yimaadona waa lagama maarmaan waxaana xusid mudan oo runtii nasiib darro weyna in maamulka Puntland uu yiraahdo dalka ma soo geli karaan maamulka Puntland waa ahaa kii anagu aanu dhisanay aanu u sababaynayno gobolada hadda maqan inuu isagu sabab u yahay waa qaadan laanahay runtii in misna la yiraahdo qofkii ka diira dhibaatada haysata wadankiina oo ka dhiidhiyay in la yiraahdo ma soo geli karo runtii aad iyo aad baan uga xunahay waxaanu u sheegaynaa shacabka Puntland taas inaanay ahayn mid qabata shacabka Puntland inay ka hortagaan waxna iskaga ogaadaan waxaanay keeni kartaa hawshaas cawaaqib xumo riiq dheer bay runtii keeni kartaa waxaanu leenahay hogaanku waa inuu soo galaa cid u diidi kartana ma aaminsan jirto cabdirasaaq sideebaad u aragtaa aragtidii ahayd in gobolada Sool ay xoreeyaan maamulka Puntland oo beesha dhumaantay faraha kala baxdo run ahaantii ma aaminsani inay Puntland inay xoreyso ay diyaar u tahay sababta lagu qabsaday Sool iyo Sanaagna waxaan u arkaa yacayn in ay tahay Puntlandnimada mana suura gelayso mana qaadan karo kamana aqbalayno in ay tahay Puntland annaga xoreynayna waxa dar Puntland la yiraahdo anigu imika aan sheego yiraahdo Puntland baa jirtana runtii ma garanayo waayo Puntland waxay ahayd dad iyo dal iyo maamul wax kale oo fara ku jira ma aqaan Puntland run ahaantiina Puntland inteeda xorta hadeer xil baan naga saaran sida ay hadeer tahay inaanu ka hortagno oo aan wax ka qabanno waxaanu leenahay shacabka reer Puntland ee ku dhaqan gobolada hadeer xorta in ay ilaashadaan magacoodii iyo sharaftoodii intaanu cadaabo kale gacanta ku dhigin ayna qabtaan waxgaradka iyo ismada iyo ururada bulshadu inay qabtaan shirbeeleed si loo soo celiyo sharaftii iyo maamulkii Puntland inta hadeer faraha aan wali ka bixin waanu ugu baaqaynaa runtii waxaanu kaloo shacabka ogeysiinaynaa isku dhacyada la rabo in la dhex dhigo bulshooyinka Puntland ee u wada diyaarka ah in ay ka qayb galaan xoreynta wadankooda oo ka dhacday in lagu soo duulay oo ciidan lagu soo humay buuro wadal waxaan u aragnaa inuu macnaheedu yahay in ay tahay isku dhac laga dhex wado shacabka si aan loogu wada gurman oo aan wax la isla wada qabsan oo dhibaato loo dhex dhigo shacabka taana waxa weeyaan shacabka ka feejignaado annaguna waanu garanaynaa macnaheeda shacabka Puntlandna maanta maaha dad la isku diri karo maaha dad waxa aanay doonin lagu khasbi karona maaha Puntland shacabkeeda oo dhamin halka haddaan kaa weydiiyo buuro wadal ma joogaan ciidan u babacdhigi kara haddii dhinacyadan labada maamul ee najixka mid hungureeyo inuu xumiina khusuusiga iyo garaadada halkan ku sugan oo soo qabto ma haystaan ciidan u babacdhigi kara wayba dhacday runtii in maamulka ku soo saaray ciidan isagu ma amreen runtii mana eegayn waxna ma xeerinayn laakiin waxa kaliftay in laga hortago awood meesha joogta ayaa kaliftay oo hatta xilliga ciidamadu ma ay wada joogin laakiin maanta waxaaba halka noo joogaan ku rajo weynahay kii aanu ku hawlgeli lahayn ee dalka maqan aan ku xoreyn lahayn waxba ma aragno weerarna lagu soo qaadin macna weyn sameeyay ciidan bal ku sugnaa halkan deegaankan buuro wadal oo markii hore Puntland ka tirsanaa ilaa baal sheegay inuu idinkiina soo degdegay oo hadeer aad xumiina khusuusiga hoos yimaado waxa kale wararka noo soo gaarayaan in ciidamo u fay jooga ayagana soo dhaqaaqeen oo idin soo socdaan barnaamijka maxaa faahfaahin naga siin kartaa ciidanka buuro wadal kaliya jooga maaha ciidanka Puntland meel kasta uu joogo runtii wuxuu heegan leeyahay oo u qorshaysan inuu ka qayb galo oo buuro wadal yimaado ayaa u qorshaysan kii halka joogayna waa nala qadiyad oo awalba meesha qaxootinimo ku yimi ciidan beeleed buu ahaa awalba meesha dhibaata keentay ma ay keenin askari doonasho ma ay keenin taas waa saas wuxuu la qorsheeyay maamulka goboladiisu la qorsheeyay ciidankii jiray u fayn jiray oo beeraha tolka ah